kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan channel fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka taabas ay ku soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo galno waxaan eegi doonaa Nisa iyo waliba dagaalyahanada Alshabaab qaybta amniyaadka oo dagaal xoogan ku wada jira xilliyadii ugu dambeeyay iyadoona Nisa ay qabatay dad tiro badan kadib markii la helay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir Maxamed Xaaji oo loo yaqaan Ilkaase kaasoo ahaa baraka tirsan jaamacad ku taala magaalada Muqdisho Hayyada Nisa oo la shaqeynaya sanado badan si aad la socotaan waxa la xiray madaxii rugta ganacsiga ama gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale agaasimihii fanka gobolka Banaadir Abshir Gaarane oo fanaan ahaa heesihiisana si weyn looga soo deyn jiray TV-ga Soomaaliyeed ee qaranka ee SNTV waxa sidoo kale hadda toddobaadkan xiran dhalinyaro YouTube leeya oo caan ka ah magaalada Muqdisho kuwaas oo la sheegay in la shaqeynayeen Alshabaab Maxamed Xaaji Ilkaase madaxii amniyaadka Alshabaab haddaba arintaasi ayaanu eegi doonaa haddii aad nagu cusubtahay subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka taabo si aad u hesho wararka iyo barnaamijyadan halkan tan iyo markii la qabtay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir Maxamed Xaaji oo loo yaqaan Ilkaase amaba Khalid Cadaawe waxa uu sheegay dad aad u tiro badan qaarkood ay ku jiraan ayna yihiin xubno ka tirsan baarlamaanka sidoo kalena ay yihiin xubno ka tirsan wasaaradaha dalka oo qaarkoodba ay yihiin agaasimayaal wasaaradeed kuwaasoo gacan saar la leh dagaalamayaasha Alshabaab dad tiro badan ayay hay'adda Nisa xirtay kuwaasoo lagu helay cadeymo ku aadan inay la shaqeynayaan amniyaadka Alshabaab isla markaana hadda u xiran Nisa kuwaasoo kalena ay Nisa baariso cadeymana ay doonayso inay ku hesho isla markaana waxay sheegtay Nisa inaan lagu fududaan doonin maadaama aan cadeymo ku filan loo haysan dadkaasi waxa hadda toddobaadkan u xiran hay'adda Nisa ee sirdoonka Soomaaliya wiil lagu magacaabo Siidow Lugeel oo isagu ka tirsanaa dhalinyarada sida weyn u isticmaashay YouTube-ka isla markaana bulshooyinka Soomaaliyeed bariyihii ugu dambeeyayna sida weyn ay u baratay Siidow Lugeel waxa uu ka shaqeynaya durdur media iyo waliba baraha YouTube-ka ee sida aadka loo daawado waxaana muddo fog uu la shaqeynaya Xasan Toob amba maamulaha amba madaxa ugu sareeya durdur media Xasan Toob ayaa waxa la sheegay in wax badan uu ka ogaa dhaqdhaqaaqa iyo waliba xogta ninkan Siidow Lugeel lagu magacaabo hase yeeshee arintaas waan aadi doonaa laakiin aanu eegno waa kuma Siidow Lugeel waxa uu si weyn u isticmaalay baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka isagoo la shaqeynaya durdur media bilihii iyo waliba sanadihii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa Siidow Lugeel ma ka tirsan Alshabaab markuu ka baxay maxaa uu qabanayay maxaase hadda uu ugu xiran yahay muddo toddobaadka ka badan hay'adda Nisa waxaan eegi doonaa arintaasi Siidow Lugeel waxa uu ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa iyo waliba xarakada Alshabaab ee ka dagaalama Soomaaliya iyo waliba dalal dhaca Geeska Afrika wuxuu qabtay xil muhiim ah oo ah madaxa cashuuraha ee gobolka Banaadir ee dagaalamayaasha Alshabaab xilligii shabaabka haysteen inta badan magaalada Muqdisho waa sanado badan ka hor waxaana xilli uu ka mid noqday ragga ugu firfircoon ee amniyaadka gobolka Banaadir ee dilalka sameeya Siidow Lugeel kadib waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro aad u tiro badan oo ka soo goostay dagaalyahanada Alshabaab kadib markii ay ku qanci waayeen qaabka iyo qorshaha shabaabku waxay wadaan wuxuuna ku soo biiray dawladda Soomaaliya isagoona dhanka dawladda Soomaaliya waagi Xasan Sheekh waxa si macruuf ahaa in Siidow Lugeel uu ka tirsanaa oo ay dad badani ay ogaayeen inuu ka tirsanaa dagaalyahanada Alshabaab waxaas hadda uu la shaqeynaya qolo ka tirsan sirdoonka reer galbeedka oo ku sugan xirada Xalane ee magaalada Muqdisho oo uu siinayay informationada dagaalyahanada Alshabaab taasoo u sahlaysa Siidow Lugeel in Alshabaabku information uu ka helo waxay dad badan isweydiinayaan sida ay ugu sahlaanayso inuu information Siidow Lugeel oo Alshabaab uu ka helo waxa uu si weyn ula socon jiray dhaqdhaqaaqa qaraxyada Alshabaab taasoo u gudbin jiray sirdoonka reer galbeedka ee ku sugan xirada waxay dad badan isweydiinayaan Xalane waxay sheegaan qaraxyada ka hor intaysan dhicin waxaase hadda muuqata inay xogo ka helaan dad kale oo Soomaali ah oo qaarkood la tuhmi karo in qaraxyadaasi ay wax ka og yihiin ama ay wax ka qorsheeyeen Siidow Lugeel walaalkiis la dhashay waa madaxa istijaadiyada dagaalyahanada Alshabaab dad badan ayaana fahansaneen istijaadiyadu waa madaxa isqarxinta dagaalyahanada Alshabaab waa ninka abaabulo qaraxyada diyaariya dhalinyarada isqarxinaysa iyo waliba arrimaha ku saabsan oo dhan waxay hoos tagaan Siidow Lugeel walaalkiis taasoo keenaysa in Siidow Lugeel in labadaba uu la shaqeynayo waxaana arinta la yaabka leh ay tahay in Maxamed Xaaji Ilkaase oo ay saaxiibo dhow ahaayeen Siidow Lugeel walaalkiis isla markaana ay wada shaqeynayeen saaxiibo isku dhowna ay ahaayeen ma cadeyn karno in Siidow Lugeel uu ogaa in Maxamed Xaaji uu ahaa Ilkaase
ama madaxii amniyaadka gobolka Banaadir in sidaasi uu yaqaanay.